asalaamu calaykum. Soo dhowaada. Ku soo dhowaada xinjiraha jacaylka. Maanta waxaan soo gudbin doonaa erey jacayl oo qalbiga taabanaya. Waxaan tirinayaa daqiiqadaha ilaa iyo inta aan ka arkayo. Markaan xasuusto in nolosha inta dhiman kula qaybsan doono adiga, waxaan bilaabaa inaan kuu xiiso macaan. xabiibi, waxaad ii gelisay rajo horey inaan u socdo iyo inaan aamino maalinun inaan midoobi doono, mar dambana kana dheeraan doonin. adigaan kaa fikirayaa maanta oo dhan, mar kasta maskaxdeeda ayaad ku jirtaa. waxaan jeclahay badqabkaaga iyo nabaddaada. waxaan rajaynaya inaad fiican tahay maanto. markaan kula joogo waxaan ahay qof dhammaystiran. markaan kaa maqanahay waxaan noqdaa qof haaf ah. markaan kaa fikirayo waxaan jeclaystaa inaan agtaada joogi lahaa xilligaas qaali. markaan kula joogo waxaan dareemaa dareen cajiib ah iyo inay riyooyinkeenna oo dhani rumoowayaan. jacaylkaan ku qabo waa mid sabab la'aan ah. waxa aan keliya u bogaa sidaad u tahay qof cajiiba. waan u riyaaqaa wax kastoo kugu saabsan adiga. waan jeclaan lahaa inaad ila joogto halkan. waxaan samaysan lahayn xasuuso badan, sababtoo ah daqiiqad kastoon kula qaato waxay tahay aniga farxad. inaan joojiyo ka fikirkaada waa waxa ugu adag koonka. waxaan kaa fikirayaa wakhtiyada cajiibka ah een kula qaatay oo dhan. waan ku xiisay qaali. waxa kaliya qalbiga ku soo dhacaya waxa weeye anigoo habku siinaya. markay intaas ii rumowdo waxaan ahay qofka ugu nasiibka badan adduunka. aad ayaad u mahadsantihiin haddii aad halkan soo gaadheen. waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe saarto, like garaysa muuqaalkan, lana wadaagta asxaabtaada. mahadsanidin.